labaatanka dhexe waxaynu ku maraynaa sheeko iyo maaweelo ayaynu ku maraynaa labaatanka ugu dambeeyana waxaynu ka sheekaysanaynaa ama aan kaaga sheekaynayaa qiso aad u murugo badan oo hadda ka hor mar aan maqlay wakhtigu wuu gaaban yahay safarkana wuu dheer yahay sahayduna way yar tahay haddii tusaalaha iyo dulucda sheekadani ay ku cajab gelisay waxaan marka hore kaa codsanaynaa in muuqaalka aad sheer garayso oo asxaabtaada aad gaarsiiso laygtana mar qura aad noo saadhid haddii aad horey noola joogtay aad baad ugu mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahayna farxad ayay noo tahay in aad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto asxaabtayada quruxda badan ee har iyo habeen inala joogta laba wiil ayaa waxay tageen magaaladii ayaa waxay ka raadiyeen guri kira ah oo ay degaan muddo ayay raadinayeen guri kira ah oo ay degaan laakiin ugu dambayn waxay heleen guri ka kooban 60 biyaano guri ka kooban 60 dabaq dabaqa 60aad bayaanadii ugu sarreysay lixdanaad ayaa waxay ka heleen qol ay degaan gurigu wuxuu leeyahay sharcigaas oo ah haddii 6 saac oo habeenimo la gaaro waxaa la damiyaa laftiga ama wiishka guriga lagu koro waa la damiyaa guriguna wuxuu ka kooban yahay 60 bayaano in jaraanjaro lagu fuulo aad bay u adag tahay labadii wiil markay guriga muddo yar ku nool yihiin ayaa habeenada ka mid ahi waa ay soo daaheen waxayna ka dib dhaceen wakhtigii laftiga la daminayay baashaal iyo asxaabtoodii ayay ku maqnaayeen markay waxay yimaadeen gurigii oo laftigii la damiyey waxay yidhaahdeen bannaanka waxaa ka dhacaya qabow daran roobabna waa ay da'ayaan ma joogi karno guriguna aad buu u dheer yahay oo waa 60 bayaano oo jaraanjaro kuma kori karno maxaynu samaynaynaa wiishna ma jiro oo lagama yaabo guriga wiishka in wakhtigaa la shido maxaan samaynaa ma halkan ayaa iska joognaa ma ilaa beritaan sugnaa oo dabeesha iyo dhaxanta ayaynu u dulqaadanaa iyo roobabka waxay isku raaceen in aysan bannaanka joogi karin wax walba ay ku qaadato in gurigii ay koraan oo ay qolkoodii aadaan jaraanjarada in ay raacaan 60ka biyaanana ay ku fuulaan jaraanjaro waxay yidhahdeen sideen ku fuulnaa mid ka mid ah ayaa wuxuu yidhi guriga aad buu u dheer yahay sideen jaraanjaro ugu fuulaynaa kii kale ayaa wuxuu yidhi 20ka u horeeyo waxaynu ku maraynaa qosol iyo cayaar iyo xaraabo ayaynu ku maraynaa iyo orod iyo qosol iyo cayaar iyo xaraabo ayaynu ku maraynaa 20ka ugu horeeyo 20ka dhexe waxaynu ku maraynaa sheeko iyo maaweelo ayaynu ku maraynaa 20ka ugu dambeeyana waxaynu ka sheekaysanaynaa ama aan kaaga sheekaynayaa qiso aad u murugo badan oo hadda ka hor mar aan maqlay wuxuu yidhi waa yahay 20kii ugu horreeyey waxay ku mareen orod iyo qosol iyo cayaar bay ku mareen 20kii dhexena waxay ku mareen sheeko iyo maaweelo 20kii saddexaadna waxay ka sheekaysteen qiso aad u murugo badan markii gurigii la gaaray ee meeshii ugu dambaysay ay gaareen ayagoo aad u daalan tacaabaysan lugaha aanan dhulka ka qaadi karayn ayaa mid ka mid ah wuxuu yidhi warniyow gurigii waa nimid laakiin qisadii hadda aan kaaga sheekaynayay ee aadka u murugada badnayd qiso ka murugo badan ayaan ku hayaa kii kalea yidhi maba jirto umana malaynayo inay jirto qiso ka murugo badan kana xanuun badan qisadii aad iiga sheekaysi in dhagtayda ay maqlayso ama dhaayahayga ay arkayaan uma malaynayuu yidhi wuxuu yidhi anaa kuu sheegaya oo waxa ka murugo badan jaraanjaradii aynu soo raacnay ee aynu dhibkaas soo marnay furihii waxaan ku soo ilaaway qaybta hoose oo dhulka ayaan ku soo ilaaway furo ma wado wuxuu yidhi keennee laabanaya oo soo qaadaya kii wuu naxay wuu qaboobay halkuu ka dhaqaaqi waayey wuxuu yidhi adiguna ma soo qaadi karayso oo ma degi karaysid aniguna ma soo qaadayo oo ma degi karayo labadeennuba inaynu degno ma soo qaadi karno gurigana ma geli karayno maxaynu samaynaa haddaba qisadaa dulucdeeda ayaan kuu sheegayaa tusaale weeye dulucdana waan kuu sheegayaa waa adiga aadamaha ahay waa innaga aadamaha ahi ummatul muxamed waxay jirtaa inta badan 60 sano ayuu jiraa inta ugu badan qaalibka ahi cimriga ummatul muxamed 20ka ugu horeeyo waxaynu ku dhaafnaa ee aan ku weynaa ee uu ku dhammaadaa cayaar qosol xaraabo iyo orod waxaa laga yaabaa in inagoo waxba ka qabsan allahna aanan xusin cibaadaysan aakhira aan waxba u shaqaysan in 20ka u horeeyo iska dhammaado 20ka labaad waxaynu ku weynaa isagana ku dhammaadaa sheeko xaraabo dhaqan dhisid tabcid adduunyo ayuu nooga dhammaadaa oo inagoo waxba qabsan aakhira waxba u shaqaysan allah xaggiisa aan waxba ka shaqaysan ayuu naga dhammaadaa inteenna badan 20ka dhexe 20ka ugu dambeeyo waa qiso murugo leh waa daalaysaa xibnaha way ku daalayaan awood aad u badan ma yeelanaysid
haddii aad horey usoo shaqaysan horey aad waxba u baran horey aad waxba u qabsan waxba qaban maysid waa daalan tahay xubnaha way ku daalan yihiin waa tabar daran tahay waxba ma baran karaysid waxba ma qabsan karaysid tarbiya hadda kadib ma soo wanaajin karaysid inaad hadda kadib kitaab raacato oo aad diin barato oo aad xidhaysato inta badan kuu suurtogeli mayso in dhaqan wanaagsan iyo tarbiyo wacan iyo ishagaajin iyo waxbarasho iyo cibaado aad istoosiso inta badan way adkaanaysaa haddii horay aadan usoo toosnayn in halkaa aad iska toosiso aad bay u adkaanaysaa waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa usha intay qoyanta ayaa la toosiyaa qofkuna inta badan waxa uu ku ababo ee uu ku qaangaara ee uu ku barbaara ee uu caadaysta ayuu ku duqoobaa inta badan sidaa daraaddeed waxaynu ku qasbannahay in aynu ka faa'iidaysano wakhtiga aynu haysanno waynu ognahay adduunyada aad bay u dabayar tahay wakhtigu wuu gaaban yahay safarkana wuu dheer yahay sahayduna way yar tahay inaynu allah xaggii wax u shaqaysanno oo ugu yaraan aynu wax dhiganno dhammaanteen middaa aynu ku dadaalna ugu yaraan inaan xagga alle aynu wax dhiganno waxaan leeyahay goor iyo ayaanba guulaysa